عريري قبل إيميل وقدم بيسي لaba saddex qofood kadib waxaan ku soo dhaweey doonaa Xasan marka waxaan rabaa inaan kalmad siiyo arka macalinkiis adeer qoor soo dhawo bismillahir rahmanir rahim amaan iyo soo dhaweyn markii waa dhamaatay inta aan ku shubnaayay Xasan waa ku shubtay awal waxaad iyo maharay waxa kaliya aan noo dhiban inaan macnaha gogosha aan ka mahad celiyo gogosha dadka dhigay iyo dadka soo qabanqaabay abaabulkii marka hore iyo fikirka laftigiisa waa muhiim fikirka iyo laftiisa muhiim abaabulku waa ka fiican yahay waliba fikradaha adduunka waa la kala gataa adduunka fikradaha jira waa la kala gataa xafiis waxaa ogahay aniga hadda meel agtiina ka shaqeeya waxaa la suubiyaa ilaahay kuma samadiida rag aqoon-yahano ah ayaa nin maalqabeena meel iskugu keenay dadkaas waxaa laga gataa keliya fikirkooda waxay keenayaan baleemkaas waxay inkala sii dhiibayaan inay micnaha lagu guulaysahay boqolkiiba waa ganacsi boqolkiiba boqol inuu guulaysahay ay dhiibayaan baleemkaas ayagaa madax looga dhigayo ayagaa maamulaya marka waxaa keliya baleemkaas u keensada Xasan waxa waaye baleemkaas inuu micnaha gobolka beelaadka ka gado laftigiisa dad aqoon-yahana in la dhiibo oo micnaha laysku keeno baleemkooda laga faa'iidaysto aqoon-yahanka khaasatan isboortiga بليش هو كده ضد كمعناها إيه هو سبورتي هورا سبورت ينكلي جيران غريب يرجع حتى يقول منها سو كله إلا قد الله عافية أصلا إن شاء الله لكن إذا كلام إذا لكن إلا قد معناها في كل إلا قد هدي إلهي يراه وما سنتين وكيل ليش كده يا فيها عشاء هو بيجرب حالين هاي كده سود دوار حسن نسوقه السلام عليكم ورحمة الله هذا هو نصيحة مركان waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo sidoo kale waxaan ugu soo beeray oo marti ah Iraabe oo nooga imaaday dalka Sweden Iraabe soo dhaweeyo xasoo ku salaam waxa ugu dambeysay soo magaalada Kolding Denmark marka waa long time marka sportiga sida dhaqaatiirtu xal dhaqaatiirtu xuduud male sportiga xuduud male qaasatan nidaam anaga Soomaali aan nahay 20 sano dagaal sokeeye ku jirnay anarkii ku jirnay dhalinyarada wax baran iskool aan jirin dagaal iyo problem aan ku jirnay waxa kaliya umad kor lagu soo qaadi karo sportiga marka dama soo noqdo sportiga inuu xuduud yeesho ma dhaqaatiirta xuduud leeyahay إن شاء الله تعالى كنت ذلك إن ما تقال سبورتي وقعدة ما قال لو بيركون سدح بيركون قال هذا دقمة وشك هذا سبورتي أقول دقمة وارث أنا هرتها هديست عنق مقالة هذا الجو وقصة كورة أنا كي سكول ماله وحمله مركب عنق محبرنا هذا سكول دي محمد دي شقي دي محبرنا جام وحبرنا سبارو وحبرنا دلني وحبرنا مركب هديست مارت نع سبورتي اللي سووا جاي مارت سبورتيو هو بان العقل هو بان أو متقنا سكول فيه هو بان وأنا قف تسوق قطع سوق قطع عيارة وما حرفتك وحرت مركا حسن سولو ونقول إن شاء الله تعالى إذن كان كل يوم ما يسجل معه هذا ما سيهاي مركا وحان ربا إنا وكسور قدوميها سبورتيغا سوسيست لندن قدوميها قشو سولو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أنا سود ويوافي حسن وأنا داير اللي قالهم جعلها هنا أحكم روب من داير وسبورتي اللي جرينا يك لما نحرله بدن عن كهوري مش أحكي جنا هنا دنيت اللي يراه ماشي جوا وجعلنا هاي أن عملنا هاي سبورتي وقولك أن أنا والله سعدا واحد بدنا في الصدق لأن يرى بدن وحاق وحرنا وعملنا شيء كذا أن مرة بحاجة تقول لأنه نقاعش قلت له ولا له لكن لو قالوا إيه سبحان الله أنا بقدر
yurubta koox badanaa ka jira dhalinyaro badan oo reer muqdisho ah oo dheeshada ku jiraan oo haddii la infaad garay imaan lahaa gobolkana wax badan kusoo kordhin lahaa sida gobollada kale ay sameeyaan marka insha allah inaad ku dadaasho kuwaasna inaad xiriir la sameysaan oo aad mataqaana casuulitaan si isdhexgal looga helo kuwii dibadda iyo kuwa gudahiiba labada waana mahadsantahay kusoo dhawoolana شو هذا ما سيهاي مركان وحان ربا إنا كسو دويو لبدا كلمة قدام بيسميت كميدا waxaa ila soo dhaweysiin walaalkay Cali Islaweyn Cali soo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وعم فرحسنا حفلتنا شوي معنا ولكن حسويش عاد بقوم ستين سيدا وضبطين مر والبن حلوبة هي علاش مشكلة عدان قرب لسين وحسور تقيلها ملا مركا عاد فرحسنا دتك هوشان كوكابي سودوين تنسوبي دتك نوي مالين عاد بقوم فرحسنا والدي السلام markaan waxaan rabaa inay la soo dhaweysiin Liibaan Daawud ama Liibaan Xisb ما شاء الله horta waa iiba salaamay hadana qiyaafta ka soo wada qayb galay meeshan walaalkay welcome to London macal buurine dadka waxay ka wada dhawaajiyeen wax qabadkiisa soo qabadka wali meherka rabno gaarsiisno gobolka Banaadir hadda qasho wuxuu yiri ilmo inta laga wado gobolka Banaadir yaana been la isku sheegin runtii waxaan yahay gobolka Banaadir waxay u baahan yihiin ilmo yaryariisa maadaama la ma dheeri karaan Serie A dadka la dheeraan gobolka Banaadir in ilmo loo xareeyo sanadkii inta la gaarin loo diyaariyo ilmahaas gobolka qarashka waa dhiibeen aniga caawa waxa u ballan qaadaa oo Ilaahay uu ogyahay laba isku joog oo dhar tuutayaashooda fanaanadooda inaan gobolka hadda ugu dhiibo markuu baxay ilma yaryar hadda la diyaariyo ilmaha degmooyinka Serie B-da in loo diyaariyo la isku hayo mas'uulka ficnaada waa laga qaadaa kooxa qaadanaysa next markii la gaaro ciyaalka la isku ma hayo la isku ma keeni karo hal sano in ciyaal la isku hayo mushaarkooda qarash u baahan dhalinyaro in lacag la siiyo dadka kale waxa lagu wadaa lacag lagu wadaa ballanqaad lagu wadaa waxbana iyaga lama rabo habeenkii soo ciyaaraan kiisana la siiyo meel ha lagu hayo hadda intaas laga ballan qaado anaga mushaarkooda ballan ka qaadana wala si walaalkay sheego waaye ma u baahna riixo ma u baahna qof walba meeshuu ka imaaday anay kaantaan xaafadda ka sameynayna gudoomiye dacaran aan naga mas'uula marka qaarkood isma fiicnaan yaa sig laakiin mas'uuliyadda sanada soo socota meesha lagu qabanayo inay koox soo qaadaan hadduu yahay weliba ciyaar yaro la isku aruuriyey oo aan koox qaadanaynin waa in laga saxiixa iyaga soo dhawow macal buurna waxaa la yidhi jeeyo diyaari 20 sano laga joogaa jeeyo kadib inuu taga baxa daran macal ciiduusa ka dambeeyo ciyaar hay in la sheego waa 20 sano goor macal waxaan maraynaa meelihii ugu dambeysay waqtiga cariiri ah ciyaartooyda hore iyo dhexe iyo dambaal ah marka waxaasna cudur daartay guray oo ku jiro ciyaartooyda dhexe sayna waxaan leenahay cudurdaarka waa ku cudurdaarnay markaan waxaan rabaa inay la soo dhaweysiin intaanan xasan la gelin gudoomiye qoor waxaan u mahadcelinaa akhyaarta soo qaabisay sharafta badan maadi dacwada wadayaasha xaafadan waaye in aad ugu mahadcelin waaye xaafadan waxay caan ku tahay mar walba xasan soo in dadka madaxda ah legendisa inta ku soo London soo dhistay in inta soo taabto waa lagu raaco farxada ay ka soo qayb galo هذا ماشي اللي يجوز يجي كله فرحة قش واحد متكسر عن هذا ما أعتقد حتى قال كذا معها عرفت أنت جبت حقي بي ودن كذي
حسن نقاب شيء وقت عيابتوي فرق بدون وقعتكم هاي وانين مهم كوب ديلا ديغو علي تبغى اسكو جوغا او اوغا انو قادا marka عيابتوي Soomaali u badan yihiin waa inta badan Soomaali waaye gobolka banaadir naaga looga baahay aad ugu xumaay in Soomaali hadda muqdisho ويران تدور من الستيت مليون إن دور بقولوا بينكم موشة إن تدور من الميل موشة قبل على تعرف وأول ما تيجي سكر معه وعندك وهو سبع أدم المكان دويست أنا ذو عارفنا أنا تقول في بنادر عن خيب هذا النتيجة لنا ذو ما سنتي تعبي قراد وما سيهاي كلي عربة هنا ضعر كسور دويو كتبنا وضعر كسور دويو مع كل أولاد حسن وحي معناها عربة هنا كان ضعر كسور دويو المدير وقابن كلي مرة بينا نوردعه كلي حسن عشوه توبيكاس كهذا دونا لكن سيد عن كور قبنه أما أنت بدن waxaan u dhunduleelnaa macnaha cayaaraha ka jiro Soomaaliya kulay Allah naxariisto adeerkay wiishna 2004 ilaa 2008 boosku hadda xasan ku jiro qaybtiisa xogeynta gobolkan intaas ku shaqeynay waxaan wax badan marka aan kulay dadka qaar laga yaabaa in macnaha isbiirad gobolka isaga jirto aan aqoon ahaan aan aniga inta aan ka warqabo ay tahay baahida ugu daranayna haysato waxa looga bixi karana kulay dardaarankii oo liibaan oo hadda meeshan ka dhiibay ee ugu muhiimsan tahay waxa kamid ah macnaha gobolada kale example oo kale markii la dhaho Galmudug ama markii la dhaho Koonfur Galbeed ama markii la dhaho Hirshabeelle ciyaartooydu u dheelaysa ciyaartooy magaalada Muqdisho laga wada qaato ay reality markaan ka wada hadalno kaliya Jubbaland iyo Puntland waxay u madax bannaan yihiin inkastoo sanadkan xataa Puntland ciyaartooydu u dheelaysa qayb kamid ah laga keenay Soomaaliland qayb kamid ah ciyaartooydaas marka waxay ka madax bannaan yihiin waxay dheelaan sida annaga aan u dheelno heerka koowaad heerka labaad iyo heerka saddexaad horyaaladooda dheelaan haddana mamnuuc kama ahan in ay ciyaarihii gobolada dheelaan laakiin annaga ciyaartooydeena hadda gobolka banaadir ciyaarihii aan dhamaadeen 22 dheelaysa 11 kamid already waxay u dheeshay heerarka koowaad ee hadda socdo marka haddaanan macnaha aanan laga tegin reality-ga waxay noqonayaan inaan malaayacan isku qancinayno kaliya waxay u baahan tahay raganimo la sameeyo dadka gobolka banaadir oo dhiigooda ku shaqeynayo inay ciyaartooyda mushaar u qori karaan ay dhahaan ciyaaryahan kasto oo target ah oo degmada ka soo baxo naadi ma qaadan karto naadigu wuxuu ka helaa gosh cungan uu baahan yahay naadiga waxaa laga yaabaa $50 ama $100 inay u qorto cunigu wuxuu fiirsanaa marka interestigiisa laakiin hadduu helo $50kaas iyo $100kaas uu naadigaas ka qaadanayo cungaas wuxuu ka doorsanaa karaa ilaa sanadka kale laga gaarayo inuu naadi ku biiro marka kulay taas xasan oo experience-geeda hadda ku jiro naadigu asiga magaca uu raadinayo inuu naadigu u dheelo laakiin cadaadis waxaa ku saari kartaa markaa xoogaa dhaqaalihii saaraysid dhaqaalahaas cadaadis waa ku saari kartaa kulay experience-geeda taas xasan oo diina waxaan rabaa inaan kelmadii ugu dambaysa aan ku soo dhaweeyo walaalkay dacar si xasan oo ugu soo dhaweeyo dacar kale tifadal السلام عليكم. السلام. marka hore waxaan aad iyo aad u walaalahay meelaha dhadheer ka yimid sidoo aad adeerkii ugu kor cali jumcaale waxaan odayahay aan aaminsan amniga xaafad u dhiiraya qalbigiisa yar oo noo ordaayaa marka waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin walaalahay meelaha dhadheer nooga yimid dadka isboortiga sida maxamed cali maxamed khaliif islow dadka meelaha dhadheer ka yimid cabdi axmed ismaaciil xasan muuse dhammaantiin injineer baana muwaadinka Soomaaliyeed لجنة كلية والدقيلة بطل بشير هذه هذا ماتين
walaalkii ninka cabdiraxmaan jimcaale waa ninka tv-ga qaranka soomaaliya dhisay sidaad aqoonina soomaaliya xeel badan kala duwan ka soo qabtay waana nin aad iyo aad ugu soo halgamay waxqabadka maanta soomaaliya tv-ga qaranka meeshuu maraya ninka maanta keena waay aad iyo aad ugu mahad celin haddaan soomaali walaalkiin aad iyo aad ugu mahad celin kule horta waxay dhaheen puntland ina naga badisahay na dhigtay aniga taas waxay iga tar degmada hooda mar walba beriyaa ka badiso marka nin walba dhibahays ma fahamtee wiish muxuu ka qaban karaa nin walba dacwiisa marka guddoomiyaha waxaa fiican dacwooyinka qaar la qaadayo oga in laga tago ninka puntland qadaan ka taagantihi degmada waa beriyaa qadaan ka taagantihi marka waxaan jeclaan lahay ninka la hayo xasan wiish walaalkiin waxaanti haddii ilaahay laga cabsado marxaladda uu ku shaqaynayo maanta xamar waa aragtay marka aniga waxaa aaminsanahay maanta in kritika la daba dhigo ama la yidhaahdo waxbaa qaldan waxbaa saana xoogaa aniga dacar ahaan ah inkastoo nin mas-uul yahay in fiicantaasee kritik loo samey laha waxaa fiican haddaan nahay dadkiin gobolka banaadir inaan dulqaad badan muujino maanta xamar waxaan u malaynaa rabadaan soomaaliya ayaa dhihi jira habeen bas beerayda inuu qabtay gobolka banaadir meel fiican waa soo gaaray da'yar waaye maxaan ogaatiin dadka maanta la shaqeeya asaga sida ninka hambi ama amataad ugeysa sportiga isuguweyn waxyaabo fara badan oo asaga cariira ku jira muhiimadda ugu weyn naftiisa ka mid ah dhaqaalaha ka mid ah marka waxaan jeclaan lahay in naftigeeda taas mudnaan ama ixtiraam gooniya la siiyo qofka marxaladda ku shaqeynaya jelfish yurubaan joogna qof walba kule fa cup waxaas dadkan 100 sano ka badan ee rooshan soo waday anaka haddaan gadaal waxaa u noqonay 100 years aan gadaal u noqon marka waxaa fiican loo mahad celiyo la taageero walaalkii liibaan inkastoo hadal ku heshiin laakiin sometimes xikmada ku jirto wuxuu ballan qaado oo ku taageersannahay waanu ku ayidsanahay war wanaagsan waay inaan gobolka banaadir aan gacan siino waana wax la qaban midda kale waxaa la yidhi macalimiin wuxuu qabtay waxaa jeclaan lahay naftigeeda taas inaa wax ka dhao يعني مع البور اللي هم لينا حلو وعقبتي حافظنا الصومال ما تكفي لكن هم لينا هم لينا حافظنا الصومال يمكن تصب أنا أدرك يا أبوك ما حدنا وحكي قبل أبصر دفع نما اللي مركي أو لو يجينا بدوريها قوة بدر هم لينا عيد ضدكم أماني سألهم أماني نبغى سودكم فوق سنة هم لينا وهاي هم لينا وامد ملكو جاك من هنا ما تودك هاي هم لينا مركا الدنيا قري أنتي سعيد في عواي لكن الحمد لله وعن جعلان هرتاج هذا ما سنتي وتسوى وحكفتنا سلو نفتي سوى بحب مورجان حمر واحد بيسوي جوجي سوى حرك وبضع عقل مستقبل يجي جوا أركب وحنا شيء لما شفته أنا قاصة قبل كبنادر أو والله لا لكن مع كل ما من فوتبول كان حاجة السنة نفتي جاي نحل كرواق قارني سوات وتمشي أو ربنا واقعنا هذا تمشي وكنا غنينا مركو حلا ويش حافظ عن وحافظ مر والبق تذكر ما الصومالي اللي رسول الوين السياسي كل عاوح أو تنك كنية وكرت كل مسمية خاطعة تحت تسمية عدنا سنة تمسون خم لكن حسويش وصلوا حافظا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا odayaasha sportiga ee reer London waxaa wada meesha joogo iyo inta saamiix weysiinay yimaadeen dhammaantiin waxaa sharaf weyn ah inaan maanta macaawa meeshaan sharaf ku samaysaan waana mid taariikhi mana aha markii ugu horeysay sida walaalkii u sheegay horey oo u yimid muddo 10 sano ka hor reer London طبعا هم يقعنا إلى المسؤولين أو الكسريين سأقول ذلك حقوقهم إن يعني ديان وأنا واحد من بهايش أفضل ما أنتم حماش في السريات ويقرأ ووضع كروح ومسؤولين مسؤولين ذلك حقوقهم مسؤولين لما أنتم يعني المذيعين إلا تشكيلين ولا شرفوا دبعت الصومال يقولون هو هيسف ما أنتم حواي ذلك ذلك فكران باهيدا وحيلا وحيوان معاصر لكن أنا جهان وحيلا تحيي واحد أقول ضربة
سال سعودي عشان نقدر ما تقدر انت هذا الشيء واحد قدر انه حواي waxa Soomaaliya ka dhacay ignorance dadka in la tixgeliyo ciyaartooyda hore la tixgelin carruurta la tixgelin Soomaaliya maanta muqdisho dadka example waxa ka soo qaatay muqdisho waxaa magaalada markaa baabuur dhex martay arkaysa kumanaan kun oo dhalinyaro ah jirkaya oo iskood khada u ciyaaraya qof ku fikiraysa ma jirto carruurta yarka ah sidii wax loo labada kun iyo lix iyo tobanka waxaan ka qayb galay shir lagu qabanay hotel Jazeera oo looga hadlayay hadda USAID-ka isugu wacday ganacsatada iyo aqoon-yahanada iyo gobolka banaadir oo aan ku jiro qaybta sportka kala galay sida wax loogu qaban lahay magaalada barnaamij waxay wada ah xasilinta iyo dib u dhisidda magaalada muqdisho marka mashruuc ayay rabeen inay sameeyaan mashruucaas oo waxaa inay dhanka xasilinta mashruuc ka sameeyaan dib u dhiskana ayaa mashruuc ka sameeyaan dood badan kadib waxaa la qaatay laba mashruuc keliya mashruuca koowaad oo qaatay mashruuca jid dhiska lix mashruuca meesha markay mashruuca labaad oo qaatay wuxuu noqday maadaama dood badan dhex martay anigana xoogaa ka dooday in dhalinyarada wax in loo qabtay ay muhiim tahay maadaama xasilin laga hadlayo maantana Soomaaliya ay tahay wax haleeyaan dhalinyaro yihiin haddii wax wanaagsanaan dhalinyaro yihiin in dhalinyarada loo qabto wax weyn loo qaban karan ay tahay sportska in lagu caawiyo marka waxaan ka caawinaya la weydiiyey sida la socotaan aniga footballer ah inta badan law of the game ka sharciga kubadda cagta qodobka ugu horeeyo wuxuu ka hadlaa garoonka qodobka labaad wuxuu ka hadlaa kubad taas micnaheeda waxaa waaye sabab ujeedda loogu bilaabo garoonka taasoo micnaheeda ah garoon la-aan wax la qaban karo sportiska haddii mar garoon uusan jirin wax la qaban kara male waxaa ku soo xiga marka kubaddi haddii kubad lahayn iyadana oo garoonka lahaayo wax la qaban kara male kadib number 3 qalabka ayaa ku xiga marka waxaasoo dhan waxay ku tusinaysaa in magaalada muqdisho ay garoon la-aan ka jirto dhalinyarada dhibaataasi waxaa u qaaday sawiro iyo kalibyo tusinaya video yaraa ka sameynay documentary ah oo carruurta laamida kamalaan inayso baawar technical ag marayso dhibaatadaas way la qaateen mashruuca sportiga dib u dhis garoomada waxay ballan qaadeen inay dhisaan 3 garoon kubadda kolayga ah iyo garoon qoobta oo taqaanin kaaraan ku yaalo inay dhisaan mashruucaas ka taqaanin aad u dheeraana ilaa ay hadda dab lagu wareejiyey injineerkii design-ka loo sameeyey wixii dhan ilaa hadda laakiin weli waxay aad looga xiran waay laakiin dhibaatada haysta waxay tahay dadka Soomaalida ayaga ma jeclo in ay wax dhistaan waxaa u baranay sanadihii ugu dambeeyey in anaga wax noo dhiso taasna horumar lagu gaari karo dadka walaalaha qaarkood waxay soo jeediyeen aad aniga cawda xasaayaba aad intaan ka badanaa loo soo jeediyeen laakiin ciyaar aad waxay isku soo biisho waday koob maxaa loo shaqo qaaday dabcan aniga ma jecel inaan kiskis badan ka bixiyo markaa qofka ay guul daraysto waxaa fiican ka guul daraysta in wax ka baratid dabcan haddana sanadka dambe dhibaatooyin badan way jiraan dabcan dad technical fara oo mahad ka hadla walaalkay way jiraan waxyaaba badan ka jiro magaalada muqdisho oo hadda faahfaahinteeda waqtigeeda qaadan karto laakiin rajeynayna insha allah sanadaha soo socda inaan mar kasta u fikirno iyadoo magaalada muqdisho maanta mas-uulka ah haddana as a nation oo fikirno aad iyo aad ay muhiim u tahay puntland jubbaland qoobka way qaadeen walaalihii waa mahad celinaynaa ciyaartooyda maanta naftirkooda looga faa'iidaysaa qaranka way waxaa la socotaan ma raba inaan waxqabadka inta badan ka hadlo sababtoo ah waxaa jirto social media wax badan waa la socotiin waa la qabtay markaa waqti ku badan fiicno ciyaarihii degmooyinka waa la socotiin sidaa u qabanay waxyaabaha muhiimkaas oo qaadan waxaa ka mid ah ciyaarihii hadda ugu dambeeya degmooyinka oo habeenka finaalka qabanayay waxaa dhacday in aniga isdhaxay ciyaartooydeena hore oo dhibaataysan magaalada muqdisho degan arrintaas ma soo noqdo leeyahay maxaa ku kalifay inay shaqo heli waayaan ama ay shaqaysan waayaan markay duqoobaan xanuunsanaa waxaa fikir marka in dhalinyarada intay kubadda ku mashquulsan yihiin waxbarashada lagu hogaamiyo oona la ilooba anaga mas-uuliyiin
labaatan iyo sagaal kursi oo 4 jaamacadood ayna siiyeen ciyaartooyda dugsi sare ka baxday oo degmooyin ka qayb qaadatay iyo lacagaha jaamacadda noo bartaan taasoo ugu gol lahayn haddaan isticmaalno ciyaartooyda entertainment noo sameeyaan magaalada sportka ciyaaraan markuu bridge oo amba ciyaartooyda oo ka baxo waqtigiisa oo dhamaado wuxuu qabsan karaa intaas laga fikra ayaa muhiim loo noqotay sida walaalkii oo sheegan waxaa waaye keligii waxuu qabanay dabcan gudoomiyaha sportka toddobiyo degmo ayagana shaqada qayb weyn ayay ka qabteen lafta markii waa toddobiyo degmo gudoomiyaashooda iyo maamulayaashooda waxaa kaloo jirto guddi sporti oo heer gobol ah sidoo kale way jiraan dad badan oo talooyin la siiyo walaalkii maxamed cala kamid ah oo marar badan noogu yimid magaalada muqdisho dabcan markuu yimaado markasta xafiiska lagu soo raadiyaa soo waca soo talooyin iyo qorshooyin marka waxyaabaha kaloo qabanay oo muhiimka waxaa waaye in sida la sheegay ciyaaryahanada waxaa aaminsanahay in ciyaartooyda soomaaliyeed meel walba joogto la isticmaalo hadday gobol tahay hadday dibad tahay waxaa xasuusanaa ciyaarihii bariga bartamaha africa 2015 injineer baana la joogay oo ka mid ah xubnaha east africa oo badda kolayga waxaa ka wada magaalada muqdisho ilaa 18 ciyaartooy 15 ciyaartooy oo meesha ka yimid tartanka waxay ka qayb galeen magaalooyinka bariga bartamaha africa iyo badda kolayga dabcan way aragnimo waheed waxaa kaloo kasoo qayb gasho koox soomaaliyeed oo qarba ka socotay magaca qarso ku ciyaaraysa inkastoo laga guulaystay haddana way aragnimo waheed waxay arkeen kubadda kolayga ka ciyaaraan magaalada muqdisho iyo tan laga ciyaaro africa inay kala duwan tahay xaqiiqada faa'iidooyin badanaa kasoo helnay isla sanadka ku xigay 16 way baaqatay laakiin 17 waxaa haddana loo qabto magaalada nairobi isla tartankaas waxaa fikirna marka maadaama magaalada muqdisho ninkaa laga wada waxaa la raadiyay ciyaartooyda dibadda joogto si ayagana magaaladooda wadankooda matalaan ee wadannimadu u dareemaan waxaa wacnay shiiqa waa taqaaniin waa legend kubadda kolayga waxaa ka codsanay in ciyaartooy loo diyaariyo oo tartankaas loo qayb galo waa ku guulaysanay ciyaartooyda tikadada oo dirnay hotelkooda ee dejinay tartanka ka qayb galay waxay ciyaareen 4 ciyaar dabcan semifinalkana lagu badiyo kambala naga badisay laakiin 4 ciyaar ciyaareen waa 2 ciyaar oo groupiska ah iyo tii semifinalka ahayd taasna laga badiyay tii oo kaalin saddexaadna waa ka guulaysan soo guulaysanay lacag $1,600 ah iyo koobka kaalin saddexaad horumar fiican ahayd ciyaal dhalinyaro ahaayeen weliba qaarkood 20 jirka aad iyo markii la arkayo waxaa loo maleynaya inay kuwaan basketball ciyaar anaa hataa waa shakisnay xariiqan ka ii sheego laakiin markay garoonka soo galeen dadka aad iyo surprise buu noqotay sida u ciyaarayeen kooxdii amba maamulkii tartankaas waday wuxuu noo sheegay in magaalada muqdisho tartankan iyada nooleysay sababtoo ah soomaalida degan nairobi aad u fara badan habeen koowaad cidna noo yimaan oo wax yar noo yimi waxaa la dhahay soomaali waa $23 laga badan doonay iska dhaaf laakiin markay badiyeen la ogaaday habeenka ciyaarta labaad garoonka meel laga gala waayo xataa dadka afarkood gacanta kusoo qateen ramadaan waxqabad badan waa lasoo qabtay habeen in ciyaaro bilaabno gobolka banaadir ugu guulaystay tartankii maamul goboleedyada waa la qabtay kii hadda sanadkan dhammaanaya 2017 waa la qabtay qayb weyn ay ka qaadan xaqiiqda insha allah waxaa xaqiiqa inaan u baahannahay gacantiina taladiina waxyaabaha hoos sii dhigaya waxaa ka mid ah in dadkii maskaxda lahaa oo sportiga hore ugu soo shaqeeyey amba laga faa'iidaysan lahay inay waddanka dib badan ka maqan yihiin haddana lala xiriirin oo looga soo qaybgelin waxqabadka inay ka qayb qaataan waxaa rabaa hal su-aal inaan idin weydiiyo oo aan raba inaan idinku kaligiin iska ka fikirtiin mar walba meel la iskugu yimaado waxaa laga sheekeeyaa 40 sano kahor ama 30 sano kahor ciyaarihii ka jiray geeyo waqtiga habeenka noocaas ahaay madbacada badda 20 ama 30 sano hadda ugu dambeysay ciyaaro badanaa dhacay lagama sheekeeyo micno weyn ku jiro in mar walba lasoo hadal qaato ciyaarihii hore mar walba lasoo hadal qaato ciyaartooydii hore ciyaartooyda u dhexaysaa 30 sano ugu dambeysay weli waxaa la hadal hayaa ciyaartooyda hore oo waqtigii dowladda maxamed saad loo naxariisto
loo sameeyey waxaa la dhaho dalkaaga un doollar ku dhiso waxaa noo diiday sporting aad dhaha un doollar ku dhiso sporting un doollar fikrada keeni karaan waxaa kaloo rabaa inaa ku daro ciyaartoy aad u dhibaataysan oo ay qarna muqdisho joogto iyo meel walbo dalka soomaaliya kamid ah abiya kamid ah sida la sheegay aad iyo aad oo maxaabiy arrintiisa inay dheeraato had marka ugu dambeysa u tagaaya sababta ugu taga waxay ahayd xaaladiisa wasaaradda dhalinyarada sportiga gacanta ku haysa inaa ogaan meesha wax marayay riboora ka qoray warqadaa ka sameeyey gudoomiyaha ugu dambeeyey hawskii boroseska waa iska socday laakiin ma dhamaan laakiin insha allah haddana gudoomiye kale noo joogo dabcan in sportiiba isagana jeclaha inoo weyn kala doono waana meesha laga sii wada doono laakiin annaga maxaa nooga habboon inaan ka qabo haddaan nahay amba qurba joogta dadka soomaalida babalka joogto qaab in la helo saciid qorshe la taqaaniin amaan dhaxas bil ka hor noogu sudiyey qadab gurigiisa waxa oo marti qaaday odayaasha sportigii hore waxaa joogay shirkoobe abkuu gudoomiye hore olambikada wasaarihii hore sheeg wasaare ku-xigeenkii hore maxamed cabdi yuusuf scott ciyaartoy fara badan ilaa kontomiya waaye arrinta ugu muhiimsan laga hadlay waxay dadka ku dhibaataysan ciyaartoyda hore maxaa sida wax loo qaban karo dabcan in akoon loo furaa la isku soo qaaday insha allah barnaamijka soo socda marka laakiin aniga waxaan rabnaa in fadhigan uu noqonin mid lagu cashiyo la isaga tegi kariya idin waxba is aragtaan guddi samaysaan reer london guud ahaana ka hadlaya isku daydaan bal akoon loo sameeyey alxamdulilah meel fiican carruurteen maanta kubeerta hoosta ku jiraan laakiin inaan ka fikirno carruurta dhibaataysan oo magaalada muqdisho joogto ama soomaaliya meel walba ka joogto oo maanta waxba haysan amba kalaabs lahayn ama koox maanta u ciyaarta lahayn insha allah aad iyo aad ayaan kaga mahad celinaa sida sharafta laga soo dhaweysan in muqdisho laga guuleysto in koob la iska qaado waxaa ka daran biiska hoose soomaaliya sportiga kama dhismo academy ma jiro ciyaartooyda hoose oo soo tababar ma jiro waxaasoo dhan in la fikiro waxaa ka muhiimsan in koob in la qaaday in la qaaday in laga fikiro tartankan wuxuu soconaa dhammaanka ama 2 weeks waa dhammaana lagu kala taga ciyaartooyda ugu fiican kooxyaa kala qaadanaya intaasay ku eg tahay laakiin aaway 16 jirkii wixii ka horseeyey ka jira lama og marka ciyaartooydan qaran kulligii maanta